السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان دعوضياشا قيمها إيا قدرينتا مدن وانين السلام يا حنا دمانتي من يكسو دوينيا جنالك إروتيج إن شاء الله سيدا آدمانتا كسو أركتين عوانكا وحا آدمانتا كهالينا دلكين iyo sida looga sameyn karo horumar ballaaran. haddii aan taariikhda dib ugu noqono waqtigii dawladii Siyaad Barre wuxuu ahaa dalkeenu dal wax soo saar leh, sidaas oo kalena dawlad leh, isla markaana awood u leh inuu caalamka wax ka gado ayuu ahaa dalkeenu isla markaa wuxuu ku suntanaa waxyaalaha uu ku suntanaa waxa ka mid ah in ay ummadda ku nool dalkani ay yihiin ummad aad iyo aad isu jecel, isla markaana aad iyo aad isu tixgeliya. xilligii ururkii SYL waxay jirtay marka loo kala socdaalayo wadooyinka ama sidoo kale marka loo kala socdaalayo laba magaalo waxaynu awood u lahayn qofku inuu kaligii soo socdaalo isagoo oo aan wadan wax yacni sahay ah ama sidaas oo kale wax bahalkiya oon wadan, isla markaana uu u soo socdaalo Hargeysa ilaa Muqdisho oo kale. waxauna awood u lahaa qofkaasi inuu habeen walba uu soo hoydo reerkaasina uu habeenka meel seexiyo, isla markaana sahay wanaagsan siiyo. ummaddeenu waxay ahay ummad sidaa isugu xidhan xilligii ay Soomaalida dhabta ahi ay jirtay baynu odhan karnaa. dalkeenu wuxuu yeeshay dawlad, isla markaana dawladdaasi waxaa waddankeena loo soo doontay dalxiis. dad fara badan oo kala duwanna way iman jireen waddankeena. si kastaba ha ahaatee dalkeenu isla markaa wuxuu lahaa wax soo saar, waxauna awood u lahaa dalkeenu wax uu isagu sameeyey inuu caalamka ka iibiyo. waxyaalaha waxaa ka mid ahaa dalkeenu wuxuu lahaa warshadda kabaha iyo sidoo kale warshadda dharka iyo sidoo kale warshadda baastada iyo sidoo kale warshaddii hubka ayuu lahaa waddankeenu. sidaas oo kale wuxuu waddankeenu lahaa warshadda dharka oo noocyadiisa kala duwan ku sameynaysa. wuxuu ahaa dalkeenu markaa dal ay ka shaqaynayso dawladnimadu waxa ay tahay haba nidaamka lagu shaqaynayo ha khaldanaado oo nidaam shuuciya ha ahaado, laakiinse wuxuu ahaa dal u diyaarsan isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta iyo wada tashiga iyo yacni ma garanaysaa wax kasta ayuu u diyaarsanaa dalkeenu. si kastaba ha noqotee maanta dalkeenu kii maaha oo dalkeenu wuu isbedelay. maxaa haddaba dalkeena bedelay? waxaa la yidhaahdaa danta guud. haddii danta guudi meesha ka baxdo danta gaarkii ma shaqayso. dalkeena waxaa loo kala qoqobay qolyo, waxaa loo kala qoqobay qabiil, waxaa loo kala qoqobay yacni reer ayaa dalkeennii loo kala qoqobay. oo maanta waxaad arkaysaa reer meel degan oo leh annagu maamul hebel baanu nahay ama maamul hebel baanu noqonaynaa. waxaana meesha dalkeena gaarsiiyey waa siyaasigu wuxuu doonayay inuu dawladda uu ka dhex arko dantiisa gaarka ah, laakiin arinku sidaa ma ahayn. siyaasiga waxaa laga doonayaa inuu dawladda ka dhex arko danta shacabkiisa ee ma aha inuu danta gaarkiisa ah uu fiirsado. sidaa daraaddeed ayaa dalkeena waxaa ka bilowday qalalaase iyo dagaal iyo yacni ma garanaysayay dhib ayaa ka bilowday. waxaana jiray dembiyo laga galay Allah subxaanahu wa tacaala, isla markaana cadhadiisu ay xagga kale inoo rogtay. waxaa daba isweydiin mudan, dalkeenu ma ku noqon karaa halkii ama sidii ma noqon karaa ama si ka wanaagsan ma noqon karaa? wuu noqon karaa dalkeenu, laakiin awalan waxaa loo baahan yahay toobad baa loo baahan yahay oo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dib loogu noqdo ayaa loo baahan yahay. kadibna laysla eego dhibaatooyinkan aan sheegi doono iyo sida looga gudbayo. dalkeena maanta xag kasta marka la eego wuu ka burbursan yahay. aan ku horeeya xagga dhallinyaradeennu maanta waxay noqdeen waa dhallinyaro aan awood u lahayn in ay haba yaraatee wax sugaan ama ay yacni shaqaystaan. waa dhallinyaro aan awood u lahayn. maxaa yeelay ninka dhallinyarta waa laga yaabaa inay dhallinyaro fara badan ay daawato muuqaalkan, laakiinse waxaad isweydiin mudan ninka dhallinyarta maanta
saaka waxaa laga yaabaa inuu soo kaco isla markaana uu quraacdo oo reedi quraacda waa loo sii sameeyey oo gabadha walaashiisa ayaa mar hore alaasaydu intee kacday jikada gashay dabeedna u samaysay quraacdii kadib quraacdii buu cunayaa quraacda uu cunay umana soo dhigin meel ugama soo wareegin bal iska daaya sixniga uu wax ku cunayo xataa isagu ma dhaqan ka soo soco dabeedna waxaa laga yaabaa markiiba inuu intuu joodarigiisa ku laabto uu moobilkiisii daawado isla markaana moobilkiisa siduu u daawanayo ay qadada ku gaadho qadada markay gaadhana kabacdi uu haddana moobilka daawado sida uu u daawanayana ay ku gaadho cashada ku gaadho amase marka ay 8 tahay uu suuqa u baxo 12 habeenimo marka ay tahayna uu gabi ahaanba ka soo laabto suuqa wax alaale iyo wuxuu la socdo haba yaraatee ma jirto bal iska badaa inuu banaanka wax ka ogaadee gurigiisa dhexdiisa waxa ka soconaya haba yaraatee ma jirto waa dhalinyarada dhibaato haysata arrinkaasi ka soo soco maxaa kale caqabado ina haysta caqabada labaad ee ina haysataa waxa weeye waa bulshaweynteena ganacsatada ganacsatadu waa wadanku meesha uu ka dhaqaaqayo dawladuna waxay ku tiirsan tahay ganacsiga ummadda ayay ku tiirsan tahay ganacsatadeenu waxay samaysaa dalkeena waxbaa loo soo dhoofiyaaye isagu waxba ma dhoofiyo amase ganacsi yacni ku fakeraya inuu wax dhoofiyo haba yaraatee ma jirto maxaa yeelay dalkeenu waxa ugu badan ee uu soo dhoofsadaa waa alaab iyo waxa la cuno iyo waxa la cabo waxa isweydiin mudan waxa laga yaabaa inaad meherad soo gasho laba sharaabna ay yaalaan sharaabna wuxuu ka soo go'ay dalka sharaabna wuxuu ka soo go'ay dalka dibadiisa amase waxa lagu soo farsameeyay dalka dibadiisa isla markaana waxaaba laga yaabaaba qofku inuu iibsado sharaabka lagu soo sameeyay dalka dibadiisa taasna waxa keenaysa waxaynu ihtimaam siinay waxaynan inagu lahayn oo waxaynu ihtimaam siinay waxaynu soo dhoofsanay waxa isweydiin mudan haddii ganacsiga soo dhoofsi bes laga dhigo ummadeenu sidee bay noqonaysaa ummadeenu waxay noqonaysaa laba dabaqadood bes ummad wax soo dhoofsata oo qofku marka uu wax soo dhoofsanayo isagaa shaqaala yacni dadku waxay kala yihiin waa customer iyo vendor bay kala yihiin haddii aan af Soomaali ahaan u dhignana dadku waxay kala yihiin waaridle iyo macmiil sidaa daraadeed qofka ninka ganacsatada ah ee maanta jooga Soomaaliya dhammaantood waa wada waaridle in yar oo qudradda wadanka ka soo gooda iyo sidoo kale wadanka waxyaalaha ka soo go'a iibisa maahaane dhammaantood waa wada waaridle sidaa daraadeed dhammaantood waa wada macmiil oo waxbaa loo soo waaridaa waxaana u soo waaridaa dalalka inagu xeeran ayaa u soo waarida sidaa daraadeed taasina waxa weeye already qofka isagu ganacsadaha waa shaqaale waxa ku hoos nool shaqaalaha wax u iibiya inta kaliya weeye shaqaale kale oo saddexaad oo halka ka banaani haba yaraatee ma jirto laakiinse dalkeenu hadduu noqdo dal isagu isku filan oo wax beerta oo yacni ma garanaysaa waxa uu beeranayo iibsada maxaa dhacaya awalan dadka wax beeraya waa waaridlayaashii kuwa ka shaqaynayana waa shaqaalihii halka waxa ka soo baxday already laba shaqo ka soo baxday ka saddexaadna waa maxay waa ka loo soo iib geynayo ee ganacsadaha waa shaqo saddexaad ka afraadna waa maxay waa ka u sii shaqaynaya waa shaqo afraad shaqada shanaadna waxa weeye waa kaas shaqada shanaadna waxa weeye kaas ayuu haddana ka sii shaqaysanayaayo kaas ayaa haddana laga sii qaadanaya dabeedna kaas ayaa sii iibinaya wixii laga sii qaatay sidaa daraadeed halkaas ayaynu gaadhaynaa heer aynu awood u yeelano in celcelis ahaan reer walba lacagta bishii celcelis marka lagu dhufto reer walba inuu reer waliba uu bishii ku soo aado 1,000 ilaa 1,500 oo dollar waa haddii aynu awoodeenna aynu IQ-geena iyo maskaxdeena iyo awoodeenaba isticmaalno dhibaatadaasina waxay inaga haysataa dhibaatada xagga ganacsiga ayay inaga haysataa aan u gudubno dhibaatada siyaasiga maanta
siyaasiga maanta wuxuu ku fikirayaa marka Soomaaliya la joogo siyaasaddu ma aha in wadanka wax loo raadiye Soomaaliya marka la joogo siyaasaddu waa ganacsi oo maxaa yeelay ninka siyaasiga maanta wuxuu ku fikirayaa mar alaaliya marka uu siyaasadda soo dhax galo ayaa waxa uu ku fikirayaa wax tabco oo wax dhigo oo wax samee oo kan samee ayuu ku fikirayaa muhiimaduna taamaha waxa weeye siyaasigu waa inuu u shaqeeyo ummadda ee ma aha inuu dan u gaar u leeyahay meesha la yimaado dhibaatada kale ee jirta waxa weeye hadii yani uu dal kale uu wax inooga baahdo markiiba waa loo fudaydinaya laakiin se ma jirto Soomaaliya hadii ay dal kale wax uga baahato sida loogu fudaydiyaa way adag tahay oo isla markiiba waxa lagala soo horboodaya waxa tiin dal burbursan saasoo kale waxa tiin dal ay argagixiso ka shaqeyso saasoo kale waxa tiin dal aan wali awoodihiisa dhaqaale aanu kor u kicin ama awoodihiisa dhaqaale aysan shaqeynin sida daraadeed xataa marka aynu dalalka kala joogno waa la iska keen ilaalinayaayo waxa la iska keen ilaalinayaa in layna yiraahdo dalkan argagixisa ku dhex jirta waa kan iyo wixii la mida ayaa la iska keen ilaalinayaa laakiin inaga hadii wadankeena wax looga baahdo markiiba waa loo fudaydinayaa inagoo u nugul oo yaa u nugul cid waliba iyadoo ay u nugushahay taasina waa taa hadii aan dhanka kale uga gudbo waa dhanka waxbarashada waxa isweydiin mudan aan su'aasha adiga ku weydiiyay maanta magaaladeebaad adigu joogtaa kaba soo qaad Hargeysa Burco Laascaanood Cerigaabo Boosaaso Garowe Baydhabo yani Kismaayo Muqdisho to alaaliyo taa doonta joogo su'aasha aan ku weydiinayaa waxa weeye dhaqtaradii ama dhaqaatiirtii xilligii dawladda Siyaad Barre soo baxday ama dawladda Siyaad Barre wax soo baratay wali ma ka shaqeynayaan wadankaaga ama wali ma ka shaqeynayaan magaalada aad joogto jawaabtu waxay tahay waa ha dhaqaatiirta maanta u caansan Soomaalida waa dhaqaatiirta xilligii wax bartay dawladda Soomaaliya su'aal kale aan ku weydiiyay macallimiinta maanta adiga wax ku dhigta ma yihiin macallimiinta xilligii dawladda Soomaaliya wax bartay haddii su'aasha jawaabteeda isla anigu aan ku siiyo jawaabtu waa ha in yar ayaa ku soo biirtay oo yani soo baxday su'aasha saddexaad ee aan ku weydiinayaa waxa weeye magaalada aad joogto ma laga helaa qof ama laba wax soo saaray oo isku dayay inay wax soo saar la yimaadaan jawaabtu waxay tahay waa ha oo magaalo kasta waa laga helayaa cid wax soo saar la timaada laakiinse waxay isweydiin mudan wax soo saarkan yuu uga yimi xagee uga yimi wax soo saarkan wuxuu uga yimi waa aqoon ay iyagu raadsadeen aqoon la baray maaha dhibaatada kale jirta waxa weeye haddii nahay macallimiin caruurteena waxaynu ku badinaa theory-ga waxaynu ku yareynaa practical-ka laakiin sida reer galbeedku sida ma ahe ama dawladaha horumarada sida ma ahe waxay sameeyaan caruurta waxay ku yareeyaan theory-ga iyo hadalka waxayna ku badiyaan practical-ka oo qofku practical fara badan marka uu sameeyo waxa uu fahmayaa shaygani isirkiisu meeshu ka soo bilowday sida uu u shaqeeyo waxa uu qabanayo waxa loo isticmaali karo shaygan shay kale hadii lagu xiriiriyo waxa uu qabanayo dhammaan waxyaalaha soo dhan ayuu ogaanaya waxa laga yaabaa inaad taqaano chemistry-ga inaad taqaano yani ama biology-ga inaad wax ka dhigato kaba soo qaad biology-ga iska dhaaf laakiin chemistry-ga waxa laga yaabaa in aad ka in la yiraahdo curiyayaal ayaa jira laakiin ama wali baran sida la isugu daro curiyaasha sida daraadeed taasina waxay naga haysataa dhanka waxbarashada waxa kale oo jira dhan kale oo isaguna ay dhibi naga haysato dhankaasina muxuu yahay dhankaas waxa weeye waa dhanka odayaashu qof waliba wuxuu yaqaanaa qof waliba wuxuu yaqaanaa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu baray oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa cilmi siiyay odayaasheenuna inay wax xumeeyaan ma doonayaan inay wax hagaajiyaan bay doonayaan laakiinse wax hagaajiskii ayaa si loo kala fahmayaa inka dhalinyarta ninka odayga ah waxa laga yaabaa in uu wali ku dhex jiro siyaasad iyo wixii la mid ah laakiinse ninka hadduu konton kor u dhaafo ama konton soo gaadho waxa laga doonayaa inuu dadka dardaaran iyo duco isugu daro ee inuu siyaasadda iyo wax la mid ah toona uu dhex galaba hawa yaraatay laga dooni maayo
maxaa yeelay waxaa laga doonayaa inuu waddanka u duceeyo, dhalinyarta u duceeyo, carruurta u duceeyo ayaa laga doonayaa. masaajidkana uu fadhiisto oo waqtigiisa u badan masaajidka uu ku qaato ayaa laga doonayaa. inagoo dhammaantiinba laynaga wada doonayo inaan masaajidka waqtigeena ku qaadano, balse haddana waxaa laga doonayaa ninka odayga in uusan hawlahaas uusan faraha gelin. dhibaato kaloo iyaduna jirta ayaa waxa ay tahay ummadda oo ka tagtay dhammaan wax allaale iyo wixii Allah subxaanahu wa tacaala uu amray, oo dhammaantood waxay doonayaan wax aan ilaahay subxaanahu wa tacaala amrin. dhibaatada kale ee jirta waxa weeye internet, ama waxa la yiraahdo social media iyo internet isbiirsaday. waa dhibka ugu weyn ee Soomaalida maanta dhalinyarteeda haysta. maanta haddaynu dhalinyaro nahay, waxa aynu maanta awood u leenahay inaynu internetka aynu ku jirno 12 saacadood oo ka mid ah habeenka iyo maalinta, laakiinse awood uma lihin 2 saacadood oo ka mid ah inaan wax akhrino. hadday quraanka noqoto iyo haddii ay shay kale noqotaba awood uma lihin inaynu wax akhrino. taasina waa sababta keentay inaynu noqono dad aan haddii ay xataa wax yaqaanaan aysan meel fog aysan ka gaarsiisnayn. saa daraadeed iyaduna waa arrin u baahan in la xadido, maxaa yeelay cid waliba haddii cid walba baahideeda la siiyo, waxaa meesha ka baxaysa gebi ahaanba kala dambayntii. run ahaantii way jiraan dad internetka ka faa'iidaysta oo wax ka barta, oo wax ka dhigta, oo ku shaqaysta, oo lacag ka faa'iidaysta, laakiin inta bilaa camalka ah ayaa ka badan. sidaa daraadeed haddii aan dhammaan arrimaha soo socda aynu qabanno, maxaynu awood u yeelanaynaa? waxaynu awood u yeelanaynaa inaan waddankeena ka shaqaysano, macdanta la soo baxno, shidaalka la soo baxno, dhulkeena beeranno, dhammaan dawladaha dariskeenna oo dhanna ay dhammaantood wax naga soo doontaan. su'aal cajiiba aan idin weydiiye, su'aasha aan idin weydiinaya waxa weeye 100 milyan iyo 5 milyan keebaa u baahan, keebaa shaqa ka bannaan tahay? sida ay markiiba caqliga saliimka ay ku siinayo, waxa ay shaqa ka bannaan tahay 5 milyan, maxaa yeelay 100 milyan markooda horeba iyagaa isjaamgareeyey oo yacni ma garanaysaa cid ku soo biirta uma baahna. laakiin 15 milyan ayaa waxay rabaan cid u shaqaysa. laakiinse Kenya iyo Ethiopia waxay yiraahdeen anagu 15 milyan uma shaqayn karnee, waa inay 15 milyan inaga inoo shaqeeyaan. saa daraadeed ayaa raggeennii iyo dhalinyarteeniiba waxaa lagu bahalkiyeeyey waxa la yiraahdo mukhaadaraad, ama sidoo kale waxa la yiraahdo yacni mukhaadaraadka aynu maanta aragnay. sidaa daraadeed dhammaan dhalinyarta iyo dhammaan dadweynaha waxa aan ku bogaadinayaa inaynu dalkeena u soo jeesano, isla markaana aynu dalkeena ka shaqaysano. qowm ilaahay subxaanahu wa tacaala ma bedelo ilaa ay iyagu nafahooda bedelaan. intaynu muuqaalkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhammaanteedu ku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.